ilaahay daraadii uga taga ilaahay baa bedel khayr qaba siiya qisada kale in xusi lahayn waxa weeye qisatu saaxib al-usbu ninkii fartiisa gubayay iyadu way dhaweydba sacuudiga meelahaas ka dhacday ninkaasi waxay ahayd hablad dalxiis tagayaan dalxiis waatan basaska caruurta lagu qaado ee dalxiiska ay tagaan marka hablihii markii ay kala tageen intoodii badnayd way iska sheekaysanayeen inan baa iyadu bugaagteedii iyo notiskii iyo wixii bay raajicinayso meel gaar ay fadhiisatay cilmiga aad u jeclayd way ka yara durugtay dadkan buuqooda geed shishay fadhiisatay si degdeg unba baskii u tagay hablihii iyo wixiiba dabcan dad miyiga xiiseynay ahaano aad bay u fogaadeen meel fog bay tageen waxay aragtay way ka daba carartay waari jooga ciidiba maqli weyday khalaas birbiraha shitana way dhaqaajiyeen goorgabalku gaaban yahay way soo cararto jidkii iyadoo ordaysa ayaa waxay aragtay dargad yar oo kharaaba waxay istiri halkan unbaa kuugu dhow meel aad caawa ku sii baarkin garayso bahalku si aanu ku cunin ilaan 50 kilomitir 60 kilomitir bay socdeen meeshii ay islahayd waa kharaabad oo aad iska yara weheshatid wuxuuna kaga soo baxay nin muruqyo kuusano hurda baaba albaabkii ka furayba dhan alla dhan ay u dhaqaaqdaa ma jiro uu waraystay way u warantay wuxuu yidhi haddaba meesha dee bahalaa ka jira ayuu bahalku ku cunine halkaa iska jiifso kolle isagiiba eegtaa kolle waxay eegtaa ninkii kolle waxay eegtaa ninkii kolle debadda eegtaa markay aragtay debaddu inay khatar badan tahay waxay tidhi malaa kan unbaa bani aadameh dee agtiisa iska seexo waa seexday ma iyadii baa seexad sariirteedii buu baneeyay sariirtiisii buu baneeyay wuxuu sariirtaa seexo isaguna halkaa albaabku yara jiifsaday xoogaa kolkuu yara joogaba kitaab buu qaataa ee uu yara akhriyaa kolkuu kitaabkaa xoogaa akhriyo ayuu haddana shamaca shidaayoo fartiisaasuu yara gubaa kolkaasuu haddana salaad tukadaa haddana fartiisa kaluu gubaa 10kii farood ayuu mid walba dabkii ku gubay sidii baa waagii ugu baryo inantii uu kaxeeyo reerkoodii buu geeyey ma garanaysaa meeshii haa khalaas uu iskaga soo noqday inantii haddii la warwaraystay qisadii bay ka warrantay ninkii odayga ahaa ee meesha ku aragtay xoogga weynaa iyo wuxuu xalay ka samaynayay iyadina way naxsantay intaa hoosta ka eegaysa hurdaba may seexanba waxay isleed goor mustalo soo ruqaansan doonaa aabbaheed baa markaa wuxuu u qaatay inuu jin ahaa dabeedna wuxuu ihi bal meeshii itusi way u tilmaantiibuu ku yimi ninkiibuu la kulmay qisadiibuu ka waraystay wuu soo kaxeeyey inantiibuu u keenay markaa wuxuu idhi ninkii kan ma ahaa haabay tiri waa isagii wuxuu idhi maxaa kugu kalifayey marka hore uu soo weydiiyey markuu halkii ugu tegay buu soo weydiiyey wuxuu idhi maxaa kugu kalifayey farahaaga inaad kolba mid gubto waxa igu kalifayey buu kolba shaydaanku dhagtu waxii saaraa wuxuu idhaa buuri tan caawa cidiba kaagama dhowaa haddaan mid uun ku hinjin lahayd caawa tanaa kugu dhow cidlaad ka heshay khalaas sina ku samee dabeetana waxaan akhriyaa buuhi kitaabka wuu soo jiidhaa buuhi kitaabkiina markaasaan kolba far gubaa buuhi marka fartaasi waxay ka turjumaysaa naarta ilaahay jawaabtu haddaad sinadaa samayso sawta naarta ilaahay dabkaa way ka sii kulushay marka naartaan ku xusuusanayay buuhi dabeetana tii kolba hamadda iga tagsiisaa buuhi ta kalena hamadda iga tagsiisa saasaan kaga joogay buuhi mar haddaad sidaa inantaydii u nabadgelisay nin daacadana sidaa u ahayd inantii imminkaan kuu guuriyey buuhi sidiibuu guur xalaalah ugu guuriyey xoolana ku sahayey